كذي قابك وطالله إنه ولي markaynu fashilanay waxaynu isku madadaalinaa shalaynu dagaal ka soo baxnay war dagaalka 30 sanadood ba ka dambeeyay 30 sanadood cidda wax tari kari weyday goortay wax taraysa garan maayo waa dhamaanteen cid gaar ma aha wadanku wuu dumay waa sax laakiin 30 sanadood ba ka dambeeyay walina sidii ilaahay u abuuray buu yahay qadiya siyaasiya weeyaan baydaan kalabaad waa qadiya thaqaafiya baydaan ووعي بني آدم يسيدوا فكريه ما وحينو فكرينا إننا نجح يردوا بس وده صاره نكى العق هلابا دار دير قرار ضاين وسبيوك فكريه أما إنه وحسود دشيو وصدح بلود كدي من كاش كريه حسابيه حان خسارة سمحان فائدة إذا هنتدين يهرو مركن وما وضع الصعود سكرنا ومتشهدا هنتدين أنت هدينا يبارد بيو صعطة أنت هدينا يبارد وحنا جاك سبورت كان يمبورت كان بولتين الدولة دوسو صارت وحنا جاك سبورت قرينا ولا بقول يستقالي 1 مليون ما بقول يستقالي 1 مليون ديفيسيت كتجاري جاي نكوتش الرو وح معنا لا هين وح نسود النور المركز الأسودرو وح يرمرك على قريبه ولا بقول يشين مليون ما كورا ذاتك قاركود مسألة الحظوظ ومسألة الشر والخير في الفلسفة ذاتك بدانا كو انحرافات ديوا مسائل كاكو سيبان محاقفنا وحوعني محنا وحوعني وايبا قاركو وريري ودين لا أنتو كقد عضي صدودو أيها الأحبة dhulku inaguma yara oo waxaynu ka midnay dadyowga marka dhulkooda loo qaybiyo iyo dadka saaran la isu dul qaybiyo wafra dhulkooda uu ka badan yahay in badan laakiin badoodu ay in badan ka badantay waxaan ka yaabay bolotinka markaan eego kalluun baa laynoo soo dhoofiyay inagoo bada intaan leeg leh markaasaan eegay inagu kalluunka aynu dhoofino wax isu dhow maaha inagii badda lahayna kalluun baynu dhoofin kari la'aanay كلنا ولا ينسوا دوفينيا بني آدم كو هدو اسكت شنكري وايو وادب تطور كبني آدم كو وصاق علي إلهي سبحانه وتعالى فتوحات علمي بني آدم كو فراه مركز طولنا لشو يصاع لليون طبعا تسألنا السينية مثلا إن نرجع كو صابسا نلشو waxay dhahdaan xadaaraadku laba shay hadii la waayo umada horumar ma hesho waxa ugu horeeya ee bini aadamku ku horumaraa bay dhahdaan waa energy waxa ugu muhiimsan bay dhahdaan biyo iyo light dadkii biyo iyo light ka qabeeli kari waaya horumar ka rajayn haday umadu biyo ku filan weydo iyo haday energy ku filan weydo suurtagal maaha inay xadaarana samayso nololina u suurtowdo suurtagal maaha asaasiyaadkii noloshaynu la'aanay markaa wixii horumarkuba ku salaysnaa horumarka aadamu labadaas shay wadanka laga la'ayay kama suurtagal aha halkay taagnaayeen inay hore uga dhaqaaqaan waayo wax kastoo ay soo saaraan dunidu waxay soo saartaa ka jabnaanaysa ساويت حبت برنا إن هذا كان قصص أرتا وحكى جبنا نسحبت إثيوبيا لا يكيرو مركا كاجي بيرلي ده حبت بيري ماي إلى وحكوا قالية وحي وحلو ساري كاجي أرجع دقة يسيف عم وحدق ماي نلاش شرط بيسعن مايس كي ورشة يرسميني ورشة يسوسعن مايسو إذا اسكف الله شيء حاجة دو قاريسا أدو واحد عبتلا اسكف الله شيء حاجة دو قاريسا أدو أنا نرجع يسنين markaan soo duuduubo dunidu loolankaasay ku jirta ama siraac tabaqiya ha noqoto oo tabaqaadkan ay sheegaan in la isu dilo ha noqoto ama ixtikaaraadka caalamiga ee dad rabaan arsaaqda bini aadamka inay kaydiyaan waayo dunida maanta aynu ku noole waxay dhahdaan cunnada la tuuro ayaa waxay dhergin kartaa weliba qaybi ka soo hadhi kartaa bini aadamka dunida ku gaajaysan oo qura iyadoo la ilaalinayo market policy-ga sicirka suuqu inaanu jabin dawladaha waaweyn qaybo ka mid ah cunnada ama shirkadka waaweyn
cunno badan oo bini aadamku uu beero soo baxdaa dib loo gubaa ama dib loo baabi'iyaa sababtuna waa maxay sicirka suuqu inaanu isbedelin si adiga lagu dhigmiirto ilaa adaa baahanoo lama rabo wax jaban in lagaa iibiyo wax qaaliya in lagaa iibiyo oo lacag fiican lagaa helaaba loo baahan yahay waxaan ku soo koobaya ilaahay wuxuu inoo tilmaamay wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha arsaaqda ilaahay baa bixiya waxaa ilaahay inoo tilmaamaya wa fi samaa'i risqikum wamaa tuucaduun samadaa risqiina ka yimaadiyo waxa laydin yaboohayba dee wax kala daaya cadceeddaa qura enerjiga dunida yaa loo dhammayn oo cadceeddaa in ku saabsan isoo ma ogidin cadceeddaasi ayaa geedku caleentiisu photosynthesis energy ka qaadataa dabeetana geedku wuxuu cunaabay u beddeshaa noolaha dunida ku nool oo dhammi warshadda yaree caleenta la yidhaahdaa waxay soo saartaa bay cuntaa waxa dunida la shito oo dhammina waa caleentaasi waxay samayso enerjiga dunidu muxuu yihi imaa isagoo qoriya oo kanaynu inagu weli joogno oo aan looxa inaynu shidanno hadduu dhulka hoos maro oo certain pressure and temperature uu gaadhana faxam xajariya buu noqdaa dhuxul dhagaxeed hadduu hoos u sii socdo oo meel hoose uu gaadhana gaasiskan aynu shidannaa ee la isticmaalaa buu noqdaa xayawaankii cunay hadduu xagga hoose tago certain pressure and temperature uu gaadhana shidaalka la isticmaaluu cunaa soo qur-aanka ilaahay kuma odhanin shajarul akhdar baa naartiinoo dhan ka shidataa shajarul akhdarkaasaa bitroolka ah oo gaaska ah oo shidaalka ah oo dhuxusha ah oo waxa la shitoo dhan ee dunida kor yaallaa isaguna wuxuu ka samaysmaa cadceeddaasoo qura wa fi samaa'i risqikum wamaa tuucaduun samadaasoo ka timaadaa waxaynu u baahanay oo dhameen dhulkaa aynu joognana ilaahay baa ku beeray subxaanahu wa tacaala nebigu wuxuu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dhulka waxa lagu hantiyaaba inay tahay ixyaa marka lagu sameeyo la nooleeyo man axyaa ardan mayta fahiya lah dhul dhintay ninkii nooleeya isagaa leh innagu waynu kala weegaarannaa ma noolayno ninba dee gobolkan hargeysa la yidhaahda iyo agagaarkiisa xoolana ma daaqaan beerana kama baxaan rag buu wada dayran yahay in walba qolunbaa calaamadsatay buur ilaa buurba niman baa sheeganaya xoolana ma daaqaan waxna lagama beero waxay ku mulkiyeenna ilaahay baa hormucda garan mayso waana la kala wada sheegtay laakiin shareecadu waxay inoo tilmaamaysaa in lagu mulkiyo dhulka in la beero waxaa shareecadu inoo tilmaamaysaa dhulka in la fasaadiyaa inaanay bannaanayn man qataca sidratan sawaba allahu ra'sahu fi nnaar xadiidka abi daawuud saxiixa qofka geedgobkaasi jara ilaahay madaxu naarta ugu ridaa baa la tilmaamaya ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha calaa ma fii qalbi wa huwa aladu lkhisaam waida tawallaa saca fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha waannasr inay mamnuuc tahay ilaahay tilmaamaya beerta iyo dhasha bini aadam iyo xoolo iyo wuxuu doonaba ha noqdee in la halaaga ifsaadkaasi inaanu bannaanayn waxau nebigu inoo tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam qofka muslimka ah laa yaqrisu muslimun garsan walaa yazracu zarca qofka muslimkii wax ma beero zarac iyo dhirtoona ma beero oo insaan ama xayawaan ama cid uun kama cunto ilaa sadaqu u noqda nusuustaasoo dhamme waxay dhiiri gelinaysaa bini aadamku inuu wax beero bale nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasiila qiyaamuhu hadduu dhacayo oo midkiin gacanta uu ku hayo fasiila geetimiraadkan yare la abqaalo ha beero hadduu ka gaadhsiin karaya baa layidhi waa dhiirigelin camalka iyo wax soo saarka laysu dhiirigelinayo iyadoo la ogayay geedkan inaan cidiba cunaynin haddii qiyaamo ku dhacayo ishkaaliyadu markaa waxay tahay ayuha alxiba odayga filosofkan yuhuudiga ee naum chomsky la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay weedh caan oo sheegaysa laa yuujad shayun
اسمه بلد فقير متشربوا يريدوني ده دول يراهدو ودول فقير يريدوني ده كمتشربوا لي لكن يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد بيقول وحن بدوني ده كتشربوا يري سيستم فاشلة نظام أن موارد ودن كلية هي معمولة كريمين نظامك كدولة دقورة ما هو معك مجتمع وقاب كانوا وضرنا لندن سيستم با كتشربوا لي دول فقيرة حدا دركته ودن كل ريسورس كأما وحي أولها وعد ما ملنكري ويدي ويقول عدي لهي قاشي سيه ما شرته